irida ay boorsadaydu igu tiirsan tahay waxaan sugayaa irida inta uu ka soo galaayo oo waxaan go'aansaday oo qorshaha ii yaala uu yahay markuu irida ka soo galo warqadayda ay siiyo in aan daba maro laakiin nasiib darro ma aqaano meesha aan ku socdo wax lacag iyo wax dhaqaalaha ma haysto hotel lacagan ku seexdo ma haysto caawa ama hameen dambe tigidkaygana lacagan ku bedesho ma haysto waa erayadii qaybo kamid ah qisadeena qaybtii shanaad. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaama qaartu sharafta meel kastood ku sugantihiin macaya baraara ku waara maalin iyo habeen waqti kastoo idin tahay idin wacnaado haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana fura si ay kusoo garaan casharadeena taxanaha oo quruxda badan oo halkan ka socda asxaabtii hore noola joogtay iyo walaalaheen hore oo nala soo jaan qaaday idinkana aad ayaad u mahadsantihiin ku xirnoo qisooyinkeena iyo arrimaha ka dhacaya caalamka iyo waxyaabaha jira oo dhan halkan ayaan kaaga soo gudbin doonaa casharo aad u xiiso badan. waa qisadeena qaybtii shanaad. allahumma salli calaa maxamed. intii hore noola socotay wayba nala socotay intiina dambana nagu soo biira oo soo daawada qisada qaybteedii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad. qaybtii shanaad baa hadda maanta marayna. waxay noo maraysay iyada oo ninkii uu baxay gabadhiina ay boorsadeedii xirxiratay iridana ay dhigatay wax dhulka ka yaalna aysan jirin. awalba qof safar ay ahayd halka boorsay wadatay halkeedii boorsana way xirxiratay wayna u diyaarsanta. nasiib darrada ay haysay tiri markii caawa aan sugayo inuu ninkaanu intuu yimaado maadaama uu been ii sheegayo saacadii uu qabsaday waqti dheer ay qaadatay uu 12 saacadood maqan yahay. markuu irida kasoo galo go-aanka ii degsan ayaa wuxuu yahay bay tiri warqadeeda inaan ka qaato albaabkana ka baxo sidaa darteed ayaan boorsadayda irida kusii dhigtay si aanan guriganba ugu laalaaban oo waqti kale uusan iiga qaadano nin aan ajanabi kala nahay aanan guriga usii wada joogin. waxaa taas iiga sii daran bay tiri $1 ma haysto oo waxaan ahay qof aan shaqaynayn markii ay soo baxday dhaqaalana aan haysan qofkii aan ku xisaabtamayay oo wax walba aan ka filanayayna asaga ayuu ahaa isna sidan ayaan kala kulmay. ma haysto hotel waxaan ku seexdo mana haysto tigid wax aan ku bedesho mana haysto wax aan wax ku cuno walow aanan waxba cuni karin wax ehel iyo qaraaba iima joogaan wadanka ama magaalada uu joogo. marka waxay samaysay inta uusan imaan habeenkii galabkii markay tahay taleefankiina uu ka xirtay oo uu soo laaban waayay ayaa waxay wacday nin saaxiibkiisa oo asagu uu awal isbaray kii ayay la hadashay waxayna ku tiri niyow arrintaasaa jirta ninkiina sidaas ayuu igu yiri taleefana iga qaban maayo imana imaanayo ee waxaa samaysaa ninkaas waxaan u baahanahay inaad ii soo qabato warqadeedana aad iga soo qaado maadaama qofka saaxiibkiisa oo kaliya oo meeshan ka garanay uu adiga yahay. ninkii si kalsooni leh ayuu wuxuu ku yiraahday walaal istaji wax walba way hagaagayaan asaga ayuuna wacay asagoo u wacay si kalsooni leh oo uu rabo inuu canaanto oo yiraahdo maxay tahay waxaad samaynayso oo uu ku dhiiranaya yacni sida uu qaabka uu la hadlayo. laakiin nasiib darro ninkii sidii uu filayay si aan ahayn ayuu kala kulmay oo markii uu la hadlay uu yiri gabadhii baa ila soo hadashay gabadha xanuunsan oo tacbaanka ah oo xaaladeeda ilaahay og yahay oo maxay tahay yacni waxyaabahan kaa sheeganayso waxaan badan ay kaa tabanayso maxay tahay saa gabadha ula dhaqmaysid maxay tahay reerka la duminayo ay gabadhii leedahay sidaasaan ku ballanay. ninkii wixii uu ka filayay ninkii kale ma u kulmin oo wuxuu ka filayay inuu gar naqsado ama uu gar qaato iimowbu ku yiri aan wada hadalnay laakiin wuxuu ku yiri kumana imaanayo afaaraha reerkayga iyo gurigaygana ka dhex bax qofka ku dhex jira reerkayga oo ka dhex shaqaynayaba oo adiga aniga naagtayda afaaraha naga isaga bax. ninkii runtii wax uu aad uga filanayay ma ahayn sababtoo nin saaxiibkii ku weyn buu ahaa halka inuu gaarsiinayo uma u sameeyeen. ninkii wuxuu soo wacay gabadhii asagoo aad u qalbi jabsan isaga laftiisa oo niyad jabsan sababtoo nin weyn oo loo ergooday oo ma garanaysaa qofkii saaxiibtinimo iyo ehelnimo wixii la rababa loogu ergooday oo haddana qoftii wax uu u sheegay wuxuu kala soo noqdo midna aan hayn buu noqday asagoo niyad jabsan ayuu soo wacay bitr wuxuu igu yiri walaalay iga raalli ahow arrintii aad ii dirtay ninkii waxaan filayn ayaan kala kulmay aad iyo aad buuna ii canaantay taleefankana wuu igu damiyay kumana imaanahay ayuu igu yiri waxaan sameeyana garan maayo iga raalli ahow ilaahay ma kuu baryaaya inuu arrimahaaga kuu fududeeyo laakiin waxaan ka qaban karaa arrintan ma lahan. mar labaad ayaan qalbiga kasii jabay bay tiri oo qaracan aan sii dareemay qofkii kaliya aan lahaa waad u irkanaysaa ama uu ku garab istaagi doonaa ama ninkan qaladkiisa ayuu tusi doonaa ninkaas ayuu ahaa isagiina halka ayuu xalkiisu ku dambeeyay. balse ninkaanu markuu yimid oo uu bilaabay inuu isdejiyo ninkiiba uusan ahayn uu yacni jilbaha dhulka dhigto uu dhaho waa qaldamay raalli ahow reerkeena hanaga dumin wax walba waa saxaya shaydaan baa iga tambadiyay walaalay raalli ahow ayuu ku celceliyay iga tagay oon ballanayba ma ahna nin kale asagoo ii soo laab